سلمى حاطول عمال العيار صاحب يلا وأنا العيار لها لكن ما أودي مركب بالشيء الصوماليات عابيان عن العيار. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. dhacdooyinka dunida ka dhaca waa mid aadanaha uu raadraac ku reeba. sheekadan aan rabo maanta inaan idila wadaago waa dhacdo xanuun badan oo ay ku dhacday mid ka mid ah gabdhaha aad ku isticmaala aaladda TikTok-ga. waa mid xambaarsan murugo aad u weyn. iyadoo jirta 7 sano ayay weyday labadeeda gacmood. lama dheeli karto gabdhaha asaageeda ah. lugaheeda ayay casharka dugsiga ku qorataa. waxay maanta u baahan tahay garab maadaama ay tahay gabar yar oo mustaqbal leh. intaas ayaan muuqaalkeena ku eegi doonaa. haddaba walaal, inta aan muuqaalka u gudagelin waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan si caawinaad u hesho gabadhan Soomaaliyeed. sidoo kale la wadaag oo share dheh si muuqaalkeena dunideenan u gaaro gargaarna u hesho gabadhan yar mahadsanidin. sida wax ii gaareen waxa waaye unug yar oo dariskeena dugsi saldhigina ii keenay. marka ii keenay aniga walaalkayna isku haysanay unugu waxaa dhahay abuu ani isii walaalkay wuxuu ku dhahay hadhowtii ku siinaa aadin mid kale biriga ku keenaa ku dhahay ayaa dhahay wiilkii wax yar ka bacda wuu baxo gurigiisa aad hooyadiisa u wacday dibna waa garaacay anna waa qarxay. Salma Maxamed Abshir waa gabadha aan rabo in sheekadeeda aan ku soo gudbiyo muuqaalkan yar. waa mid ka mid ah gabdhaha aadka caanka uga ah baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok-ga. Salma Yariisey oo caan ka ah bartay TikTok-ga waxay carruurnimadeeda ku weysay labadeeda gacmood iyadoo bir ay ku wada ciyaarayeen iyada iyo wiil yar oo la dhashay, taasoo keentay in birta ay qarax samayso. nasiib daro dhacdadaas Salma waxay ku weyday labadeeda gacmood oo muhiim u ah aadanaha oo dhan, halka wiilka yaraana uu soo gaaray dhaawac fudud. 4 sano ka hor sanadii 2019 Salma waa sanad aad uga xanuun badan. murugo ayay dareemaysaa, xasuustana aysan u wanaagsanayn maadaama ay qayb ka mid ah lixaadkeeda weyday. waxayna xilligaasi jirtay da'da 7 sano, maantana waa 12 sano jir. gabadhan waa mid mustaqbal fog ku fikiraysa iyadoo iska inatirtay inay gacmo laadahay, balse hamigeedu uu yahay inay noqoto tiktooreyso dadka caawisa. amigeyga waxaa waa inay noqdo tiktooreyso dadka daaweyso. Salma maanta ma ahan gabadh dhigata iskuul, sababtoo ah iskuullada waa kuwa ay ardayda ku fadhiistaan miis iyo kursi kala dheer. Salma uma saamixi karto inay la jaanqaado ardayda kale ee dhigata iskuulka. hooyada dhashay Salma ayaa ka sheekeynaysa sababta iskuulka u goy weyday gabadheeda. iskool weli ma geynin maadaama iskoolka waxa u geyn waaye waxa sabab caqabado oo iskoolaad ka jira. iskoolka wuxuu leeyahay miis iyo kursi, gabadhaan wax kuma baran karto miis kursi. waxbarashadeedu dugsi quraan waa dugsiguna waa taqaanaa kitaab waaye. hadday tiraahdo waxaan fariisanayaa miis gacmo ma lahan, caqabadaha iskoolaadka iga yimid taas u badan. waxaa keentay dheh miis iyo kursi isku dhagan si wax loo baro. anna awood ma lahayn, waxaan qof danyara suuq markuu ag bariyo xoogsata habeenkina soo hoyata anaa ka maqan qadarta ku dhacday. marka Salma waa taasa. Salma Yariisey hadda waa caan oo dadka dhan baryaqaanaan. muddo ka yar 100 maalin waxaa barteeda TikTok-ga furogaraysay in ka badan 100,000 oo qofood. waana mid ku tusinaysa inay garab istaag weyn ka heshay dhalinyarada isticmaasha aaladda TikTok-ga. waad ku maasan tahay inaad ila soo gaarto ilaa dhammaadka muuqaalkan. walaal, haddii aad hore u ilowday inaad like saarto muuqaalkan, hadda saar si ay dad badan u gaaro muuqaalkan. sidoo kale share garey si ay caawinaad u hesho Salma Yariisey. magacaygu waa Cabdifataax Abdirashiid Abuukar Naani. Arabaa in caawiyo gacmo liikado sidaan wax u qabsado.